hadhaafin daawade muuqaalkan hortaada ka muuqda imaka si fiicanna ugu fiirso sawirkanaad imaka arkaysid waayo waxaan ku weydiin doonaa su'aal cajiib ah kana yaabin doonta inantan aadka u quruxda badan ee hortiina ka muuqata kalarka timaheeduna yihiin midabka binkiga amba basaliga gabadhan aadka u quruxda badan sawirkeeda aad arkaysaan imaka ma waxaad u malaynaysaa inay tahay qof caadi ah oo nool amba nafi ku jirto mise waxaad u malaynaysaa inay tahay qof gacan ku samaysa amba lagu sameeyay aqliga macmalka AI haddaba daawade su'aashan ku weydiiyay jawaabteeda waxaad nagula wadaagtaa dhanka commentiga waxaana ku siin doonaa daqiiqado yar oo kooban sida ila tahay waxaan rajaynayaa inaad jawaabtaadii ku soo qortay dhanka commentiga haddaba daawade intaanan kaa dabageynin sheekada aadka u xiisaha iyo la yaabka badan ee gabadhan laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba isoo follow gare imaka iguma khasaari doontide haddii aad hore noola joogtayna sharaf ayaad leedahay sidoo kale like saar videogan xaqiisana si ay anigana dhiirigelin iigu noqoto waanigoo ah Nadira Saciid haddii aan ku yidhaahdo ka waran gabadhan aad arkaysaan maaha qof caadiya gacanta ayaa lagu sameeyey iyadoo la isticmaalayo AI waxayna samaysaa lacag gaadhaysa 48,000 oo dollar sanadkii gabadhan magaceedu waa Aitana Lopez waxayna caan ka tahay baraha bulshada Instagram-keedana waxaa ku xidhan dad kor u dhaafaya 300,000 oo qof weligeed video ay leedahay amba ay hadlayso amba ay soconayso lama arag kaliya ta Instagram-keeda ayay soo dhigtaa sawiro aad u kala duwan lamana arag weligeed iyadoo hadlaysa waayo qof bini'aadama ayaa gacanta ku sameeyay waxay samaysaa xaysiisyo kala duwan iyadoo u samaynaysa shirkado waaweyn sidoo kale waxay u jawaabtaa lana hadashaa dhammaan dadka message-ka u soo dira bishii oo kaliya waxay samaysaa lacag kor u dhaafaysa 5,000 taasina waxay ku cadaynaysaa adduunka xaqu marayo iyo qaabka loo adeegsan karo tiknoolajiyadan cusub sanadihii ugu dambeeyay waxa aad loogu tartamaya oo shirkad kastaaba ay rabtaa inay noqoto ta ugu horeysa uguna shacbiyada badan dhanka samayska macmalka waxaa jirta qaabo badan oo looga faa'iideysan karo macmalka gacan ku samayska adigoo welibana lacag ka samayn kara aad u fara badan waxaan aaminsanahay qarniganaynu joogno haddii qofku uu haysto mobil iyo internet in ayna jirin haba yaraatee wax ka dhiman welibana uu samayn karo lacag tusaale anigu bilooyinkii ugu dambeeyay oo dhan waxaan go'aan ku qaatay inaan ka faa'iideysto jaaniskan waxaanan kaga faa'iideystay maadaamaan soo gudbiyo barnaamijyo kala duwan anigoo codkayga saaraya in aan dhammaan muuqaaladan soo gudbiyo ka dhigo AI gacantayda ayaan ku sameeyay taasina waxay iga caawinaysaa inaan laygu qabsanin copyright maadaama ay yihiin waxaan gacantayda ku create gareeyay layguma qabsanayo copyright iyo wax lamida mulkiyadana aniga ayaa iska leh si aan tusaale kuu siiyo waxaad ku qortaa Facebook amba YouTube-ka magaca Nadira Saciid ku dhufo adigoo soo gelaya qaybta ay ku qoran tahay videos waxaad mirmir u eegtaa videoyadii ugu dambeeyaan soo geliyay dhammaantood waa wada AI gacanta ayaan ku sameeyay daawade qaabka kaliya looga faa'iideysan karaa intaasoo kaliya tamaaha haddii aad tahay arday waxaad weydiin kartaa oo kaaga shaqayn karaa su'aal kastood u baahantay sidoo kale wuxuu kuu diyaarin karaa CV aad u qurux badan AI-gu wuxuu kuu qori karaa code aad ku dhisi karto website wuxuu daqiiqado kooban kuugu diyaarin karaa script sidoo kale wuxuu kuu samaynayaa video iyo sawir kastood u baahato noocu doonaba ha noqdee haddaba daawade adigu ma ka mid tahay dadka ka faa'iideystay dhanka commentiga iigu soo qor jawaabtaada haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay waanigoo ah Nadira Saciid shargaree muuqaalkan oo la wadaag qof kastood la jeceshahay wanaag waa inooyo mar kale iyo videoga kan ku xiga mahadsanid